munaasabad loogu magacdaray bandhig sanadeedka waxbarashada ardayda macadka SIREC iyo madrasada Cumar Faaruq magaalada Johannesburg ee dalkan Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay howlka shirarka ee daarta Amal Shopping Center ee ay Soomaalidu ku leedahay bartamaha xaafadda Mayfair magaalada Johannesburg ee dalkan Koonfur Afrika. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan ardayda wax ka barata macadka SIREC iyo madrasada Cumar Faaruq, waalidiinta ardayda dhashay iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday ayaa waxa khudbadihii laga jeediyay diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo in sare loo qaado wacyiga waxbarasho ee carruurta Soomaaliyeed ee ku nool wadankan South Africa. cilmowdiinka waxgaradka iyo aqoon-yahano ka hadlay munaasabadani ay ardaydu ku soo bandhigeen waxbarashadoodii ayaa waxa waalidiinta loogu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii carruurta Soomaaliyeed ay wax uga baran lahaayeen macadka SIREC iyo madrasada Cumar Faaruq oo si weyn u buuxiyeen baahida diiniga ah ee ka jirta dalkan South Africa, gaar ahaan magaalada Johannesburg oo ay muddooyinkan dambe ku soo badanayeen qoysaska Soomaaliyeed. ma ahan madrasadan Cumar Faaruq midda kaliya ay Soomaalidu ku leedahay dalkan Koonfur Afrika, waxaa jiro madaariso kale ay maamulaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Koonfur Afrika. madrasada Cumar Faaruq waxaa xariga ka jaray sanadkii 2004 Sheekh Cumar Faaruq oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ayaa waxaa buuxisay intii ay jirtay baahi badan oo ku aadan dhanka waxbarashada diiniga iyo maadigaba, iyadoo ay madrasadani wax ka bartaan carruur ay da'doodu u dhaxayso sanadaha 5 sano ilaa 16 sano, kuwaas oo isugu jiro wiilal iyo gabdho. waalidiintii ka soo qayb gashay kulankan ayaa waxa wajiyadooda ka muuqanayay farxad aad u ballaaran kadib markii ay carruurtii ay dhaleen ay dhiganaysay macadka SIREC iyo madrasada Cumar Faaruq ay soo bandhigeen ruwaayad ku saabsan qaadka iyo dhibaatada uu ku hayo mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka, gaar ahaan kuwa ku dhaqan wadankan South Africa. sidoo kale waxay soo bandhigeen nashiidooyin ku saabsan jacaylka hooyada iyo in la jeclaado hooyada iyo qiimaha ay hooyadu ku leedahay diinteena sharafka badan ee Islaamka. munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin fara badan sida maamulaha macadka SIREC iyo madrasada Cumar Faaruq Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida South Africa Cabdulxakiim Maxamed Haadi, imaamka masjidka Imaam Shaafici Sheekh Maxamiin Joohar, Sheekh Cabdi Samad oo kamid ah mashaayikhda Soomaaliyeed, iyo afhayeenka golaha dacwada Soomaaliyeed Albayaan Sheekh Cabdirasaaq Moolana. waxayna dhammaantood halkan ka soo jeediyeen khudbado dhiirigelin u ahaa oo ay ugu talagaleen inay sii horumariyaan ardayda waxbarashadooda. ugu dambeyntii ayaa waxaa khudbad aad u dheer oo ku saabsanayd macadka SIREC ee madrasada Cumar Faaruq waxa ay qabatay intii ay jirtay xaaladda macallimiinta wax ka dhigta iyo heerka waxbarasho ee ardayda ka soo jeediyay agaasimaha guud ee macadka SIREC iyo madrasada Cumar Faaruq Sheekh Cabdulxakiim Ismaaciil Cilmi oo ku magac dheer Cabdixakiim Tabliiq. waxa uu yiri si kastaba ha ahaatee macadka SIREC iyo madrasada Cumar Faaruq ee ka dhisan xaafadda Mayfair ee magaalada Johannesburg ayaa waxaa lagu bartaa maadooyinka diiniga iyo maadiga, iyadoo si weyn ay u dabooleen baahida waxbarasho diiniga ee ka jirta iyo tan maadiga ee tarbiyeynta carruurta Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Johannesburg. Cabdinaasir Sooman, Universal TV, Johannesburg, South Africa.